سرية قوت محمد عثمان عالين ضيب تليها عيدن كالسعودال كالصومالي ورباهنتا كلها اللي حفيز كيسا أي وحبا كما جران كتل مامي ورا المدوين كودن بيكوسو بحي ورباهنتا محلقا وركاسي oo sheegay in qurbajooga u dhashay Soomaaliland ay dalka ku iman karaan oo kaliya fiise waxaanu taliyuhu beeniyay warkaasi isagoo xusay in aanay waxba iska bedelin habkii qurbajooga Soomaaliland ay ku iman jireen dalka xilliga xagaaga waxaan doonayaa halkan inaan ka cadeeyo isla markaana aan doonayaa inaad u baahisaan dadkeena qurbajooga ee dalka imanaya inaan waxba iska bedelin sidii ay u iman jireen 25 sanadood ayna dhaafay wax fiisa oo lagu soo rogay oo ay kaga maqnaan karaan dalkooda ama kaga cadibmi karaan haba yaraatee aad waxa kale oo ay warka ku daray in la arkay warqad socdaalku qoray demi warqad socdaalku qoray oo oranaysa dadku waxay ku qaadan karaan fiisooyinka on arrival dadka reer Soomaaliland on arrival macnaheedu waxa weeye markuu soo gaaro goobaha laga soo gala dalka ma bad ha noqoto ma bariga ha noqoto ama hawada ha noqoto iyo madaarada inuu fiisa ku qaadan karo halkaas dadka reer Soomaaliland ee qurbaha jooga iyo caruurtooda dalka way iman karaan airportada ay meelaha laga soo galo ay fiisa ka helayaan dhaga kalena taliyaha ciidanka socdaalka iyo ilaalada xuduuduhu waxa uu sheegay in ay xafiiska socdaalka Soomaaliland ay sameeyeen goobo lagu diiwaan galiyay dadka ajaanibka ee ku sugan dalka isagoo ka sheekeeyay hanaanka ay u ilaaliyaan xuduudaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland gabagabadiina Sariyo Guuto Maxamed Cusmaan Caalin Dayib taliyaha ciidanka socdaalka Soomaaliland waxa uu ka warramay isla markaasina uu ka sheekeeyay faa'iidada bulshada Soomaaliland ugu jirta inay haystaan kaarka aqoonsiga ee muwaadinka marka dadweynaha wax ku gaabin lahaa hal idinka garta dadka kale qaata kaarkiina oo gala kuyuyada banaan ee faaruq ah ee la idinka siinayo kaar dawladda hoose ee gobolada dhan iyo xarunta dhexe ee wasaaradda arrimaha gudaha aad ka helaysaan kaarkii intaasna waxaan u gudbin lahaa dadweynaheena qodobka afraad waxa weeyaan oo wacyigelin dadkan inuu socda ajaanibka waxna weyna degayaan waxna weyna dhaafayaan wixiina inagu soo hara waa la xisaabtamayna sidaan aynu imka ku hadlay wixiina dhaafaya xeerarka tahriibtu iyo arinta macnaha xaaladda tahriibta jirta geeska Afrika waxaa heshiis lagu yahay in dadka la xakameeyo dalalka ay ku socdaan laga qabto isla markaana ay badahana ku dhimanin oo la badbaadiyo waxa kale oo aan toddobaadkii hore ka soo noqday dalka Ethiopia oo aan ka soo wada hadlay immigration-ka labadana u sareeya sidii aan uga wada hawlgelin lahayn dadka soconaya immigration mass follow qulqulay anu wada xakameyn lahayn xagoodii xageega waxyaalaha aan ka soo wada hadalay ay hayd wixii aan ka soo wada hadalay guud ahaan bana understanding wanaagsan oo boqolkiiba 99 baan isla gaadhnay memorandum inaan yeelano la saxiix doono kan ganacsiga iyo corridorka iyo mar la wada saxiix doono afarta arrimood baan idin soo gudbiyay adigoo mahadsan waxaan jeclahay sidoo inay ugu gudbaan meelaha loogu talagalay aadna waa mahadsantii